waxyaabo badan iska jira xayeysiino badan oo muxuu ahaay oo spam privacy-ga ku xadgudbaya website-ka ama domain-ka shabakada ka soo qaadatay marka wax waliba waxay leeyihiin xeer ay leeyihiin regulation ay leeyihiin marka waa ina ka hor intaadan bilaabin aadan iska register gareynin waa in aad muxuu ahaay xeerka iyo waxa fiirisaa waxaan horta halka ay ka soo bilaawdeen iyo hadda maanta halka ay gaarsiisan yihiin tirada qof ee isticmaalaysa sidoo kale waxa fiirinaysaa inta qof ee maalintii lacagaha ka hesho lacagaha ugu badan ee laga sameeyo maalintii dan waxa fiirinaysaa available ma ku yahay adiga inaad isticmaasho dan waxa fiirinaysaa maxaa igu banaan in aan yaani muxuu ahaa aniga markaan sameysanayo inaan ku soo galo maxaa igu banaan inaad regulationska xeerarkiisa aad eegto waa muhiim iyadana intaadan sameysanin sidoo kale remarketing inaad yaani dib u remarketing aad u sameyso yaani in aad dib suuq geyn aad u sameyso waxa laga wadaa waa nooc kamid ah xayeysiinta inta online-ka lagu sameeyo taas oo si sax ah yaani loo yiraahdo muxuu ahaa retargeting dib u beegsasho yaani productigan dada ka helay yaani productiga markay dadka ay ka helaan waa qasab inaad dib suuq geyn aad u sameyso sababtoo ah meesha waxa imaanayo demand-isa imaanayo dalabaada imaanayo meesha dalabka marka waxa la yiraahdaa retargeting inaad dib u celiso productigii muxuu ahaa kala go'ay inaad dib suuq ugu celiso ayadana sidoo kale online ka waa laga sameeyaa marka ayaa muxuu ahaa badanaana lacagtaas lagu dul sameeyaa in ay dad ay ku soo raacaan followers inay waxa kamid marka barnaamijkan la yiraahdo platform cloud computing-ka sida social media Instagram-ka kamid Instagram-ka inay dad follow ay ku soo sameeyaan muxuu ahaa soo booqdaan postiyadaada lacag lagu sameeyaa sidoo kale Facebook-ka kamid in dad ay follow ay ku soo sameeyaan Snapchat-ka kamid waxa kamid muxuu ahaa YouTube-ka kamid oo muxuu ahaa wuxuu ku jira family-ga wuxuu ku jira cloud computing ku jira marka follow inay ku soo sameeyaan qudheedu way dhici kartaa iyo in yaani muxuu ahaa soo qaado linkiga productiga markaasi oo la doonayo in remarketing lagu sameeyo 98% marka badanaana userskana aqaata dadka isticmaalaya userska ayaa qaata sidaan hore soo sheegay marka faa'iido ka raadinayaan userska marka badana waxa soo qaata userska soo qaata sidoo buu u dhacayaa marka processkiisa sidoo u dhaca maalinkii processka sidoo u dhaca ama one user click sidoo u dhaca processku wuxuu u dhacayaa in potential customers markuu one click u dhaco ama one share u dhaco potential customer inuu gaaro potential customer waxa laga wadaa muxuu ahaay customer aad u tiro badan inuu gaaro malaayiin boqolaal kumanaan inuu gaari karo falaarta sida ay ka muuqato uu soo baxayaa toos wuxuu u imaanayaa visit website markuu gaaro waxay yaani muxuu ahaay soo booqanayaan website-ka linkigan halka laga soo sameeyay ayay soo booqanayaan marka kadib linkiga markuu u furmo way isaga tagayaan inta adiga kali waxa ku faa'iideysaa bis inta ay furteen ayaad ku faa'iideysaa laakiin ma aha linkiga muxuu ahaay in ay iyagu dib maxaa la u sii isticmaali karaan ma awoodi karaan linkiga inay dib u sii isticmaali karaan faa'iidano ma ahan iyaga because adiga faa'iido ku tahay inay adiga ay ku soo booqdaan linkiga ay furtaan ayna isaga tagaan kadib maxaa dhacaya marka website-ka wuxuu sameynayaa static view ayuu muxuu ahaa wuxuu sheegayaa inta ku soo booqato uu sheegayaa static view analytical static view wax la yiraahdo uu isticmaalayaa wuxuu sheegayaa inta ku soo booqatay waxa sii kordhaya xayeysiimihii website-ka imaan jiray ayaa sii kordhaya marka xayeysiintu ay sii kordhana waxa ku sii kordhaya adigana dhaqaalaha ku sii kordhaya marka waxay ku xiran tahay website-kaaga muxuu ahaaye waxyaabaha soo dhigaysay website-kaaga wuxuu ku saabsan yahay boostiyada aad soo dhigaysay ayuu ku xiran yahay waan ka hadli doonaa markaan sharxayo muxuu ahaaye koorsooyinka kale ee soo xiga koorsada tan ku xiga duurbi karaal noqdo ay ku saabsan tahay website-yada content management-ga content artist-ka muxuu ahaaye platform dhan waan ka tagayaa waxaan sharxi doonaa blog waxa la yiraahdo website waxa la yiraahdo content artist content management-ga markana waan soo hosgelin doonaa
website-ka waxa muhiimka ah ee badana ee dadka ay jecel yihiin inay ku soo booqdaan ee ay isticmaali karo ee akhristaan lacagna laga sameeyo ayaan ku soo qaadan doonaa cashirka qaybtiisa halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan kaga gudbi doono qaybta cashirka ku saabsan course-ka ku saabsan digital ads platform-ka intaan kaga gudbi doono maalinta xigta waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan